بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta halkan iga daawanayda waxaan idin leeyahay waqti wacan oo wanaagsan waxaan rajeynayaa sidaan u caafimaad qabo inaad u caafimaad qabtid magacaygu waa cabdimajiid axmed abshir janalka aad iga daawanaysid waa cabdimajiidkiina maanta maxaan ii hayaa marka maanta waxaan ii hayaa video aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad u qosol badan balse intaanan gudaha u gelin ka hor waxa aan kaa codsanayaa in aad janalka subscribe dhahdid sidoo kale gambaleelkana aad furatid sidoo kale waxa aan si weyn kaaga codsanayaa inaad videoga like noo saartid inaad noo saartid maxaa yeelay waa inoo muhiim si videogan uu usii gaaro ama loogu recommend gareeyo dad aad u badan sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad nagu caawidid janalka inuu janal ballaaran noqdo aad share dhahdid aad ku share garidid aaladaha kala duwan ama shaashadaha kala duwan ama applicationada kala duwan ee aad ka isticmaasho social media Facebook Instagram all of them ku share garee bis hal mar hal badhan waaye ku dhufo kadibna share garee aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa marka maanta waxaan ii hayaa sida aad kusoo aragteen titleka videoga shukaansi aan inaba caadi ahayn shukaansiga maxaa waaye su-aalo badan aa isweydiinooda horta shukaansiga midka ciyaalka xaafadda maahan oo ah waa taqaaniin isoo qabo luuqa iga soo qabo okay hore nooga wad marka aan gudaha u galno videogeena wixii raba hala dhahaa wixii la yiraahdaaba hala dhahee videogeena gudaha u galno videogeena marka inoo soo qabo horta erayada ay isticmaalayaan dadkan macnaha ay isdhaafsanayaan qaarkood waxaa waaye markii aad maqasho kale maxay ka wadaan waxyaaba badan isweydiinaya balse anaa kuu fasiri doono waa kuu fasiraa macnaha fasir maxaan ka wadaa macnaha kuu micnaynaa micno kalaan kuusii saaraa oo aad fahmi karto ugu horey marka sheekada waxay noogu bilaabatay wiilka ayaa bilaaba marka wiilkii markuu bilaabo sheekada wuxuu yidhi halow walaalo waxaan kaa rabaa inaan shir albaabadu u xiran yihiin aan wada yeelano xogaa soomaaliga haddii aan qacqac ku haayo hela yaaban maxaa laga wadaa marka ninkan wuxuu yidhi qoftii oo la hadlayaa halow walaalo waxaan rabaa inaan shir albaabadu u xiran yihiin wada yeelano wuxuu ka wadaa inaan kulanaa rabnaa macnaha inaan kulan wada yeelano aan rabaa oo ka wadaa gees kale usoo mar marka sheekadan sheeko xogaa waxay u egtahay habka waxay ku bilaabatay siyaasada you can feel waa dareemi kartaa macnaha haye gabadhaa waxay tiri ayadana waxba kama qabo waa inoo beri galab insha allah macnaha taas waa fahmi kartiin waa inoo beri galab insha allah sheekada waxaan inaan kulano waa inoo beri galab insha allah aydan raacday kadib markii la kulmo maxaa dhaca marka sheekada haddii qubqac isku noqonayda haye waxaa ku bilaabatay markii wiilkaa wuxuu yidhi walaal weli dowlad ma soo dhistay abaay walaalo weli dowlad ma soo dhistay fikir maxaa laga wadaa bal haye aan kuu micneeyo micnaha ma lagu soo aroosay ma lagu soo guursaday qoorsagaaro ma lagu soo qabtay sidaas leebis haye gabadhaa marka jawaabtay haa aboobay dhacdo qoorsagaaro waa lagu soo qabtay marna quqac soo sameeyey marka haa aboobay wiilkii isagana hadlay wuxuu yidhi marka ma lagu aqoonsaday abaay wiilkaa markaa dana su-aal kala weydiiyey ma lagu aqoonsado yidhi meeshaan somaliland ma maleyna ya tiraaf maahan haye waxaa laga wadaa micnaha ubad ma dhashay waayo ubad ma dhashaa laga wadaa micnaheeda ma lagu soo arooso micnaha ma lagu soo aqoonsado waxaa laga wadaa ubad ma dhashay macnaha qobarta waxaa la aqoonsadaa ama macnaha tiraaf ay yeelataa markii ubad dhasho sheekadaas u fahmay gabadhii hadashay maya aqoonsi ma jiro miisaaniyadda dalkuna hoos bay u dhacday abaay haddee marka hadal siyaasadeed aan la fahmi karin ku jawaabtay male soo aqoonsanay dhahday micnaha haddii tii hore aad su-aashii hore faahfaahinteed aad fahamtan waa fahmi kartaa male aqoonsan micnaha wax ma dhalin waayo laakiin waxay dhahday miisaaniyadda dalkuna hoos bay u dhacday miisaaniyadda dalka hoos bay u dhacday maxaa laga wadaa micnaha biilkii ayaa adkaaday micnaha gaayga isqabsadeen oo maxaa la lahaa awal qubqacda ku sameeyaa waxaa waaye jeebkiisa waxaa waaye waa banaanka u yaalay
jeeb waxaa waaye ibirkiisu ahaa. Haye marka wiilka ayaa hadlaa isagana. Wiilka muxuu yiri marka dabadeedna macnaha kadib maxaa dhacay? Haye gabadha marka waxay tiri mooshin baan ka keenay. Booshin baan ka keenay. Macnaha dacwad aan ka keenay macnaha dacwadan aan ka gudbiyay. sidaas abahay Soomaaliga saxaabo. Sidaasaan cod aqlabiyad ah kaga guuleystay. macnaha sidaasaan cod aqlabiyad leh waa macnaha ka guuleystay cod aqlabiyad leh lagu ansixiyay. maqli jirtay macnaha marka waxa waaye hadalka waan kaga guuleystay ama mooshinka aan ka keenay uu email maray. ogolaansho labada dhinac aan helay macnaha waaye ogolaansho labada dhinac aan helay. sidaa awgeed waxa waaye waa madax banaanahay. Haye wiilka ayaa marka hadla asagana wuxuu yiri armaad anigana mooshin iga keentaa haddii miisaaniyadda dalku hoos u dhacdo. abaay sarbeebo sii hormarsada asagana amaad anigana mooshin iga keentaa haddii miisaaniyadda dalka ay hoos u sii dhacdo. waa waray waxaa laga wadaa dhaqaale la'aan haddii dhacdo ama anigana mooshin iga keentaa haddii macnaha anigana dhaqaale la'aan igu dhacdo ama mooshin iga keentaa maadaama madaxweynihii hore aan mooshin ka keentay. waa waray meeshaan waxaa waaye baarlamaanka shalay isbursanayo kale waa. haye firimbi aa lasku qaadara waa maleynaha. haye gabadha marka waxay tiri maya waxaan kuu sameynayaa muddo kororsi. abaay coronavirusa dhacay macnaha 3 bilood coronaviruska waxaa waaye aniga gadaalaha layga darawaa. waxay dhahda meeshaan waxa aan kuu sameynayaa muddo kororsi waayo waxaan ogaaday in dowladi la'aani ay dowlad xumo dhaanto. macnaha inaadan dowlad lahayn oo dowladaada ay caga ku tagneen waxaa inoo dhaanto dowlad xun anagoo haysano oo xogaa magacaan xitaa inoo wadaagto taasaan noo dhaanto ayay dhahday. intaas horta idin fasiro macnaha waa kuu sabrayaa. haye dowlad xumay dowlad la'aan dhaantana waxaa laga wadaa iyadana nin la'aan inay nin xumo dhaanto. intaan nin la'aan noqon lahayd in nin xun aad iska haysato ayaad ii sheeg kuu dhaanto. haye bal wiilkii ayaa yiri hadda ma ii codaysay? abaay wuxuu yiri hadda ma ii codaysay? ayadana maxay dhahdaa marka ayadana waxay dhahdaa aan ii sheeg intaan gudaha u gelin ka hor hadda ma ii codaysay maxaa macnaha hadda ma ii ogolaato waa. haye haa weliba waan gabadha dheedamaya haa weliba waan kugu shubayaa. abaay waan kugu shubayaa. faarax cabdulle colow waa codeeyey waa ugu shubay. aan gudaha aan sii wadno marka sheekada. haa weliba waan kugu shubayaa aniga ayaan ku garab taagan. macnaha waan kugu shubayaa waxaa laga wadaa aniga ayaan ku garab taagan laga wadaa. haye wiilka ayaa hadlay okay doorashadeenu sidee bay u dhacaysaa? macnaha meherkiinu sidee u dhacayaa? ma hab deegaan 4 ama 4.5? macnaha hab deegaan ma u dhacaa mise 4.5? maya ma rabno 4.5. gabadha ugu jaawida maya ma rabno 4.5 balse waxaan rabnaa hab deegaan ayaan rabnaa. abaay hab deegaan marka waxaa laga wadaa waa macnaha waa aroos ay isku arkayaan deriska iyo asxaabta le isku arkayaan. 4.5 meesha naga dhig hab deegaanaan macnaha samaysanayna aroos la yiraahdo. hab deegaankana waxaa waaye marka haddii aan isii micneeyo deriska iyo asxaabta iyo wixii macnaha dhadhowbisaa isku arkaya maane 4.5 ma gali karno xaggaas naga dhig oo marka noo. haye bal haye wiilka marka yiri okay insha Allah waxaa sugnaaba waa waqtiga doorashada waxaan sugnaa macnaha waqtiga arooska waxaan sugnaa ama waqtiga aan guursanayo waxaan sugnaa. sheekaduna xaggaas bay qub ku noqotay. waxaan filayaa barnaamijkeena halkaas ayuu ku egyahay. waxaa idin rajeynayaa inuu si aad iyo aad idinkaga qusliyey. channelkana sidoo kale waxyaabo badan ayaan kusoo kordhi doonaa. waxaan filayaa inaad macnaha hadda channelka la jaan qaadaydaan. sidoo kale inta ku jirto si channelkiina uu channel ballaaran oo noqdo mar walba igu caawiya ama aan isku caawino in channel meel weyn gaar oo noqdo. wax walbaan soo dhigana ii share gareeya idinkoo mahadsan u share gareeya gurubyada aad ka mid tihiin oo macnaha qoot iyo qaat iyo waxaas ugu share gareeya emailaha kala joogtiinba. sidoo kale channelkiina waxyaabo badan ayaa macnaha aan ka wada hadli doonaa. waxyaabo badan aan kusoo kordhi doonaa mar walbana insha Allah meeshii dadka ay xiiseynayaan ama aad jeceshiin in war linkaga soo sameeyo ayaan macnaha in linkaga soo sameeyo barnaamij aad u qurxoon waxaan kaga soo sameynayaa barnaamij aad u qurxoon. channelkuna waxa waaye hadda iska soo koraya marka waxaan
idinka codsanayaa inaad channelka inoo share gareedaan si channelka u koro u barbaaro u weynaado afaan somaan shareta iyo like-ta waa labada meel ee noo muhiimsan si channelka uu noogu weynaado channel weyn oo noqdo taas waa muhiim marka intaas uu barnaamijkeenu ku egyahay tani intaa ku kulmi doona barnaamijka xiga anigoo caafimaad qaba iyo adigoo caafimaad qaba waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh